kulan wanaagsan daawadayaasheena ku soo dhawaada warbixintan oo aynu ku eegayno dadka sameeya indhasarcaadka, qaabka ay adeegsadaan iyo sirta ka dambaysa in ay dadku ku qancaan, xeeladaha yaabka leh ee ay isticmaalaan iyo sida ay dadka uga dhaadhiciyaan. badanaa waxa aynu daawanaa oo aad u xiisaynaa indhasarcaadka ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo magic, kaas oo ay soo bandhigaan telefishinada. waxaanu aragnaa muuqaallo aan la rumaysan karin oo haddana aan ku qancano in ay dhab yihiin. waa xeelado iyo farsamooyin ay aad ugu tababarteen oo ay wax badan ku celceliyeen kuwa magiga sameeya. waa farsamooyin aad adigu xitaa samayn kartid kuna guulaysan kartid, laakiin waa marka aad si qoto dheer ugu fiirsatid sida ay wax u dhacayaan. haddaba waa sida ay sameeyaan kuwa indhasarcaadka ku caanbaxay ee magacoodu gaaray meelo badan oo dunida ah. waxaanu soo qaadan doonaa dhowr ka mid ah xeeladaha ugu waaweyn ee uu adeegsado indhasarcaadiyaha caanka ah ee la yiraahdo Thomas de la Cruz. 6 ka mid ah indhasarcaadiyadiisa ugu caansan ee ay ku jahwareereen daawadayaal badan ayaan warbixintan idinkugu soo bandhigi doonaa. waxaanu idin tusin doonaa xeeladaha yaabka leh ee uu adeegsado si uu dadka u indhasarcaadiyo. ma ahan sixir, mana ahan daroogo dadka lagu miyir dabooliyay, kaliya waa xeelad iyo farsamo ay caqli ku dheehan tahay. aan ku bilaabo indhasarcaadiyaha u dhashay Mareykanka ee lagu magacaabo Thomas de la Cruz. waxa uu caan ku yahay magaca smoothie. waxaan ka hadlayaa indhasarcaadiyaha ka yimid shaqada askarinimada Mareykanka ee isku bedelay indhasarcaadiye weyn. wuxuu hanti badan ka tacbay indhasarcaadka uu ku sameeyo wadooyinka iyo masraxyada waaweyn ee ku yaala wadamada Mareykanka, Australia iyo Japan. wuxuu wax badan ka qayb galay barnaamijka American Got Talent isaga oo dadka uga yaabsaday xeeladihiisa indhasarcaadinta ah. wuxuu sameeyay wax badan oo caqliga bini'aadamku diidayo, laakiin kuwa badan ayaa aaminay oo ku qancay khiyaanooyinkaasi uu sameeyay. balse marka hore, fadlan nala wadaag aragtidaada si aan u ogaano xiisaha iyo muhiimadda uu qodobkani xambaarsan. hore soo bandhigaynaa xeeladaha fudud, kadib ayaanu daha ka qaadi doonaa kuwa adag ee uu sameeyay indhasarcaadiyuhu. indhasarcaadka koowaad, indhasarcaad ku saabsan horin warqadaha turubka oo afka laga soo bixinayo. tani waa xeelada ugu sahlan ee uu dadka ku indhasarcaadiyo smoothie. ninkani waxa uu xeeladan adeegsaday habka soo socda. marka hore waxa uu ku dhaqaaqay in uu guddiga garsoorka tuso warqadaha turubka si degdeg ah oo aan la fahmaynin. turubkii ayuu kala qaybiyay 2 qayb, kadibna qayb ka mid ah ayuu gacantiisii bidix ku qariyay iyadoo oo cid ku baraarugsanna aysan jirin. qaybta kalena waxa uu saaray miiska dushiisa si loo arko. si dhaqso ah ayuu gacantiisa sare ugu qaaday isaga oo afkiisana la aaday. qof kasta waxa uu ku mashquulay inuu eego gacanta uu afka la aaday. markaas kadib wuxuu iska dhigay inuu afkiisa turub ka soo saarayo, laakiin gacanta bidix ayuu turubka ku geeyay afka, kadibna sidii inuu uu soo tufayo ayuu turubkii dibadda u soo saaray. waa intaas. indhasarcaadka labaad, kala gudbinta cadad isbuunyo ah. dhab ahaantii xeeladahan waxaa lagu tiriyaa kuwa ugu cajiibsan ee ay sameeyaan kuwa wax indhasarcaadiya. waa un xeelad iska fudud oo laakiin dad badan ay la wareeraan marka hortooda lagu sameeyo ama ay shaashada ka daawadaan. u fiirso sida loo sameeyo. marka hore indhasarcaadiyuhu waxa uu dalbanayaa mid ka mid ah garsoorayaasha in ay gacmaheeda fidiso. kadib waxa uu soo qabanayaa cad kuusan oo isbuunyo ah. wuxuu ku qabanayaa gacantiisa bidix wuuna ku dhamuujinayaa. wuxuu soo qaadayaa cad kale oo isbuunyadii oo kale ah. wuxuuna saarayaa gacanta gabadha garsooraha ah wuuna ku dhamuujinayaa. kadib wuxuu dadka tusayaa in gacmihiisu faaruq yihiin oo aysan waxba ku jirin. wuxuu codsanayaa in gabadhu furto gacmaheeda. gabadhu way rumaysan kari weynaysaa in labadii cad ee isbuunyada ay gacmaheeda ku wada jiraan. laakiin sidee ku soo wada galeen? yaab badanaa. sidee arintani ku dhacday? sidee cadka labaad ee isbuunyada ihii uu uga soo baxay gacanta indhasarcaadiyaha oo uu ku soo galay gacanta garsooraha? waa arin cajiib ah. bal ila yara daawo, adaa qanci doonee. markii uu soo qabtay cadkii isbuunyada koowaad, wuxuu ka dhigay in gacantiisa bidixda ah uu ku qabtay. laakiin sidaas ma aha, oo isla gacanta midig ayuu ku dhamuujiyay. kadib isbuunyada labaad ayuu soo qabanayaa. u fiirso, isaga oo adeegsanaya 3diisa farood oo kaliya. sababtoo ah 2 farood ee kale wuxuu ku qarinayaa isbuunyadii koowaad. markaas kadib 2 isbuunyo oo isla hal gacan uu ku hayo ayuu gacanta u gelinayaa gabadha garsooraha ah, isaga oo ka dhigaya in uu halkii labaad oo kaliya geliyay.
wuxuuna dadka tusinayaa gacmihiisa oo maran oo aan waxba ku jirin. kadib gabadha ayuu ka codsanayaa in ay gacmaheeda furto. waa labadii suuf oo hal meel ku wada jira. indhasracaadka saddexaad, isdhexgelinta faraatiga iyo qalinka. waa mid ka mid ah xeeladaha ugu cajiibsan ee uu soo bandhigay indhasracaadiyahan weyn ee lagu magacaabo Smoothanie. mid ka mid ah garsoorayaasha ayuu ka qaatay faraati yar, kadib waxa uu dhexgeliyey dun uu gacanta ku hayay. garsoorayaasha ayuu ka codsaday in ay dunta qabtaan, kadib waxa uu siiyey qalin miiska saarnaa, wuxuuna mar kale ka codsaday in ay qalinka gacanta labaad ku qabtaan. dabadeed faraatigii waxa uu aaday qalinka oo uu dhexgalay. kani waa muuqaal yaab badan oo aan caqligal ahayn. sidee xeeladani ku dhacday? marka hore indhasracaadiyuhu qaabkan ayuu faraatiga u dhex dhigay dunta gacantiisa saaran, kadib qalinka ayuu qaabkan ugu qabtay kilkishiisa. markaas kadibna isaga oo iska dhigaya in uu soo qabanayo darafka kale ee dunta ayuu faraatiga hoos ugu ritay gacantiisa midig. haddana isaga oo iska dhigaya in uu qalinkii ka soo saarayo kilkishiisa ayuu faraatigii si dhaqso badan ku dhexgeliyey qalinka, wuxuuna u dhiibay labada garsoore iyaga oo rumaysan waayay waxa dhacaya. indhasracaadka afraad, qalin sanka la gelinayo lagana soo bixinayo afka. tanina dad badan ayaa uu uga yaabsaday. qalin sanka inta la geliyo kadibna afka laga soo saarayo waa arrin mucjiso ah. bal sidee loo sameeyey xeeladan cajiibka ah? ila daawo, adigaa fahmi doonay. marka uu gacantiisa sanka la aadayo si uu qalinka sanka u geliyo, dabcan ma ahan mid uu si dhab ah u sameynayo taas. kaliya gacantiisa ayuu sanka ka dulmarinayaa isaga oo qalinka hoos u ceshanaya, kadibna si dhaqso ah ayuu afka u geynayaa isla qalinka isaga oo markaas ka dhigaya inuu afka ka soo bixinayo. si kooban haddii aan u sharaxo, waa gacanta oo si farsamaysan marna kor loo qaaday marna hoos loo dhigay. waa intaas oo kaliya. indhasracaadka shanaad, lacag warqad $1 ah oo isku bedelaysa lacag warqad $100 ah. indhasracaadiyaha ayaa dadka daawadayaasha ah hortoodii ku tirinaya lacag 4 warqadood oo min $1 ah. tirinta kadibna waxa uu saarayaa gacanta gabadha garsoorka ka tirsan. lacagtii ayuu taabanayaa, si halaaleel ah ayay isku bedelaysaa lacag $100 ah. sidee ku dhacday tanna? marka uu lacagta ka soo saarayay boorsada jeebka lagu qaato, ma soo bixin lacag $1 oo kaliya, ee waxa uu soo raaciyay xirmo kale oo $100 ah. marka uu gabadha gacanta u saaray, wuxuu soo sarmariyay xirmada $1 ah, waxaana ka hoos marsan xirmo kale oo $100 ah. kadib farihiisa hoose ayuu si fudud oo dhaqso badan uga qaaday xirmadii lacagta $1 ahayd. guddigii garsoorka iyo daawadayaashii barnaamijkuba waxa ay la jahwareereen sida lacagta $4 ahayd ay markiiba isu bedeshay lacag $400 ah. indhasracaadka lixaad, cusbo ka daadanaysa gacanta indhasracaadiyaha. xeeladan ayuu dad badan uga yaabsaday markii uu dhowr fagaare kusoo bandhigay. dhalo yar oo ay cusbo ku jirto ayuu jeebka kala soo baxayaa, kadibna waxa uu saarayaa miiska garsoorayaashu fadhiyaan. intuu haddana soo qaado ayuu cusbadii qaabkan ugu shubayaa gacantiisa oo dhammuujinaya. markaas kadib gacantiisa ayuu furayaa, ileen waaba mid maran oo aan wax cusbo ah lagu arag. si uu ugu sii adkeeyo daawadayaasha, waxa uu sare u haatiyey gacantiisa isaga oo tusinaya in aysan ku jirin wax cusbo ah. mar kale intii uu gacantiisii midig dhammuujiyey ayuu cusbadii ka soo daadiyey. tolow, xagee buu ka soo saaray cusbada? yaab badana. oo sirta xeeladan ku duugani maxay tahay? xagee cusbadu ugu qarsanayd? ayadoo cusbada gacanta bidix lagu shubay, sidee gacanta midig uga soo daadanaysaa? laakiin marka aad si dhab ah ugu fiirsato, waad garan kartaa in ay tani tahay xeelad sahlan oo si caqli ku dhisan loo sameeyey. wuxuu indhasracaadiyuhu wataa cad yar oo balaastig ah oo sida suulka loo ekaysiiyey. balaastigaasu waa uu daloolaa, waxaana la dhex gashan karaa suulka gacanta. intuu balaastigii suulka u ekaa si xeeladaysan u soo saaro, ayuu gacantiisa bidix ku qabanayaa, wuxuuna gacanta midig ku soo qaadayaa dhalada yar ee ay cusbadu ku jirto, isaga oo balaastiga uu gacanta ku hayo ku shubaya. balaastiga ayuu ka soo qaadayaa gacantiisa bidix, wuxuuna gelinayaa suulka gacantiisa midig, isaga oo qaabkan samaynaya. xitaa haddii uu adeegsan lahaa suul macmal ah oo midabka gacantiisu u eg, wax bay ahaan lahayd oo cid fahmi lahayd maba jiri lahayn. laakiin wuxuu adeegsaday mid ka yara duwan midabkiisa. u fiirso sida farihiisa looga dhex sooci karo suulkaas macmalka ah ee balaastiga ka samaysan. suulka macmalka ah ayuu iska siibayaa isaga oo cusbadii uga soo daadinaya habkan, waxayna dadku u qaadanayaan
in isla gacanta un ay cusbada ka soo daadanayso laakiin waxa ay ku wareerayaan sida ay taasi ku dhacday xaqiiqdu waa in ay xeeladani ku tiirsan tahay suulkaasi macmalka ah ee cinjirka ama balaastika ka samaysan fiiri ugu dambeyn markii uu dhameeyay hawshii nasar caadinta ahayd suulkii macmalka ahaa ayuu si qarsoodi ah jeebkiisii dambe u gelinayaa ugu dambeyn waxaad nala wadaagtaa xeeladii kuugu cajiibsanayd ee aad ka daawatay muuqaalkan fadlan aragtidaadu waa noo muhiim ee noo soo qor adiga oo mahadsan